asli dhaawacay ilaa hadda waxaan ku fikiri jiray yaa ku dhaawacay iyo ku dili sabab meeshii lagu beegsaday marka waa seexan waay marmar xitaa waxaa dhici jirtay aan kusoo kaco hay dilina walaalkii u geystay asigiina ma nool yaa asaga dawladda la dilay wala ma diyaale ninkii dilay marka ninkan dhowr jeer aan arkay waa iska hor imaanay asii rag badan dhowr jeer aan arkay laakiin markii la dilay mid way kor taagnaa midna baraankas joogi ninkan haduusna ahayn qofka xabadda u dhuftay wax waa ka warhayay banaankas joogi marka teleefon anay ma ka hadlaynin oo dawladda ay soo socdaan ama nimankii hadday buxooyin ma dhihinin xil baan noqon lahaa xigaalkan jeclaa maxaad ii xabaday oo xubnaha ii tirtay maxaad ii xabaashay maxaad ii xujaysay adaa dad ii xigee maxaad ii xabaday oo xubnaha ii tirtay xigaal baan ku ahaa maxaad ii xasiday xidigahan rabay maxaad ii xabaday oo xubnaha ii tirtay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دابا دمتنا سلامتي ملك استو أدوكا كجوتين وأرمهينا أسد عبد الله هذه سودا جرى وفرنا وعدنا قد كان دقناتي أقصى قلنا خير بدنا مخاطبة دريو كرتين وحمانتا سديت سنة كدي نسوق جارتي إن لقبتي دت كم بدأ دت كأسد دلوقتي أما والسبب ناخذه إنه ما تكرسي كصعدة وهل كان ما تتوفرني أو ليه سمارتي وكل أيام إلى هذا إن شاء الله مرلون له كعودنا رجالنا مربنا كسيلة رادو أسد نبوهد بدونا عبد الله نبوهد بدونا waxaa TV-ga qaranka ka daawanay mid ka mid ah dhalinyartii lugta ku lahaa dhibaatada ama waxyeelada asad loo geystay taariikhdan xabadka ku qoran Fernandes 27 Agoosto 2022 oo laga joogo ku dhawaad 8 sano iska dhawaato 7 sano iyo bilooyin badan si kasta aataba marabina ku sii dheeraado marka insha Allah Asad Cabdullaahi waa hadlaanigana dareenkooda maanta maaragtay Fernandes waxaa inta ku daawan doonaa muuqaal yar oo ku saabsan mid ka mid ah dadka asad dhibaateeyay oo hadli doono isaga markaa xaaladda si wuxuu u sheegay anagana maaragtay si oo dareenkan waxa inkastoo Asad Cabdullaahi iga xog ogaal badan yihiin yani arimahaas sababta ma markaas waddanka ma joogin marka insha Allah waxaan daawan doonaa wareysi oo la yeeshay qof ka mid ah dadka asad dhibaateeyay Cabdullaahi marka hore salaamantiin asxaabteena maanta waxa waa 8 sano kadib waxa soo ifbaxay oo hadda saacad ka hor aan ka fiirsanay TV-ga qof sheegtay inuu lug lahaa dilka asad loo geystay si bareed ah uma sheegin asadna asad ma toogan laakiin wuxuu sheegay ninka toogtay asad ay groupkiisa kamid ahaayeen marka ani ahaan 8 sano ka hor maanta inaan ogaado qofka walaalkay dhibaateeyay waxay ii tahay muhiimad gaar ah marka asadan u diinaa wixii hadala horta waa idin salaamay asxaabteena familkeena kulligeena waa idin salaamay kulligii waxa waaye maalintaas aad camal ay tahay maalin xasuus ku jiro waaye maalin oo taas ila mid ay camal waaye because maalintaas wixii ka dambeeyay maseexan manasan waxa ku fikiri jiray yaa ku dilay waxa ku fikiri jiray sababteen ugu dilay ugu dambeyn maanta ogaaday alxamdulillah qofkii dilay iyo sababta la dilay maanta ogaaday حقا وصباحا ما أنت مصباحي وحامات قار له الله سبحانه وتعالى أو حقا سيدي أو إنا أجاده بيو دولة الصومالية كل فيديو وحلسوا ديعة أسوق هذا أسوق شكينا مكارك وأنا حباني حال دي سأهد مؤجين وإلمينا مثلا مركا وفي السماء مركا أرماني عبد الله نحلين فيديو لو ذاك أصحاب هذا سي أنا كان أوفير سنة وحي وربحين رسمي أصلي أو إنك أسد قديلة أحبك وأنت مركز سيمرابو ويسعيد وأنا فيديو كان الله في الصلاة بس النهارده الفيديو hawshii ugu horeysay kooxdan ulka xalta kamid aha ay markoo ka qabtaan waxa kamid ahayd dilkii wiil dhalinyaro oo lagu magacaabo Asad Xaajo kaasoo ka shaqeynaya Xaajo bookshop oo ay qoyskoodu lahaayeen wuxuuna sheegay maxamed ilka xasan in dilkaasi uu geystay nin saaxiibkiisa isna uu ka fogaaday in la aqoonsado maadaama ay Asad saaxiib ahaayeen أسد أنا شخصيا أقانو وها يعني أنا في عنو وها دولة المشكلين وحبا موسنها من كان أفكي سكو عدي إن أسد ودولة المشكلين ونم في عنها هاي أفتأسيا كم رحات فري إن قف والبانين يخاننا وحنا هي وجهي بليه روك جوجي فوتوغاس وسك جوجي فمن أهانا يعني وادت أطلعوا يقانا فوتوغ يسوي لك كاس حلقة جوال كنا بولا يقانا سبب كدوك سوي شهادة حتى يسوي صور شهادة أنا صورت أنا حال دي مبوجين لكن
waxaa jirto ardayda gobolka dhan in aan sawiro xilliga sana dugsiyeedka xitaa kuwa celish biyaha ilaa iyo adig gobolka anaa sawiri jirtay saro waxaa laga yaabaa inuu kamid ahaa laakiin ma aqoonsan karo waqtiga kusoo wareegatay marka asahan mujiisa mataqaana horma aragti horta wallaahi waa kanaxsanaasi laakiin qof igu cusub maaha banaankan joogay oo meeshii isaga stationka hortiisa munishibi meel lahaa ku tala sarta dheereed oo muxaadarooyinka wax lagu qaban jiray anuu xagga taagan aan waxaan arkaa anug oo marka dambe dhiman doono oo boodbooda la dhahi doono aan meesha taaganaya asad telefoon intuu qabto wuxuu dhahay horaa nimankan wada carareen gebigooda wallahi fulay waayo odahay ninka boodbooda ah walaalkayga dilay waxawaaye qofka gacanka xaq daran disho oo alle tala saarto waxawaaye xaqa marbuu soo baxaa walaalkaygu dhib u geystay asigiina ma nool asaa dhawey nin boodbooda laaya dilay marka ninkan iyo boodboodaha waxbay isla ogaayeen ninka dhintay asad dhaawac u geystay ninkan waxbay isla ogaayeen videona sii wadas عبار مركب هذا إذا أنا قدام صوت أرد مش بكلام يعني نكيد جيفا أغنى هنا كان بس كل حريص أنا بس نكيد صوتني حد حسان ولا هاي نكون له تلفون أسوق هذا تلفون كسوة كذا أنا مش أسد هذا كودي إنت عن أسد محل مخلصي مركب إنه كان هم دعوا سي واحد دعين ذكر مرة ما دام أصحابه شيء والله إن كان ستيل رتب شيء أحبهم آخرين because مركني دلائل midoo ay kortaagnaa midna banaankas joogi ninkaan haduusna ahayn qofka xabadii u dhuftay wax waa ka warhaayay banaankas joogi marka teleefon anay muka hadleynin oo dowladda ay soo socdaan ama nimankii hadday buxooyihiin ma dhihinin teleefon hal maraan ku hadle halkaas marna waxay ahayd markaan guriga joogay ama guriga soo baxay waxaan la hadlayay Cabdullaahi hadday ag fadhiyo oo aan la tashanayay maadaama magaalada kala wareegi jirtay dukaankeen la xiraayo oo lacag in jirto marka maxaan sameeyaa ma lacagtaas kala soo baxan soo ku dhaafaa hadii waxa kala tashanayne oo ku saabsan xoolaha meesha noo yaala lacagta maadaama kala wareegi uu jiray waxa laga yaabaa oo in la soo fargashto afaaraha la baaro hadii waxa dhici kara markaas telefoon ku hadlayay bis ninkaan markaas intay joogtay ana ilaa xaafadda joogay gurigeyga joogay markaas soo baxay because magaalada inay khasneeda ogaay telefoon ma bulu hadli karin marka bilay marka okay sug kuwa gudaha ku soo galeen meeqa ahayn aad sheegayso qof gudaha soo galay kan kale banaankaas joogay dadkaas celinay jugad ma xirnaa ma furnaa wallahi saahid ma xasuus okay bilay aad markaas ku jiro dukaan kaligiga okay أنا مش تاجن وده يعني ما كوسو قلنا وحو قبنا. أسد هذا وده هاي أنا كليجي عاد كان كليجي بجرا ده أسد عايش مكان ويتينا من كان محله يا وقت كنا نكاس تلفون وهلا مرك إنه واحد خرنا عليه ماشي قعدة سيستح أنا كان وراسي وما بحمل بليل أسد مركز هو ولا أنا وأركي أنا بارا لا يسوي ستوب أنت يا كوزين ninkaan hadalkiisa inuu isburinayo kaystaan إذا أنا قدام صوت أرد مش بكلام يعني نكيد جيفا أغنى هنا كان بس كل حريص أنا بس نكيد صوتني حد حسان ولا هاي نكون له تلفون أسوق هذا تلفون كسوة كذا أنا مش تاجن وده يعني ما كوسو قلنا وحو قبنا أسد مركز هو ولا أنا وأركي أنا بارا لا يسوي ninkaan wuxuu dhahay asad ani markaas waa arkay uu noolaa baralays uu ahaa asad markaas dhakhtar lama geenin wax lama geenin barti lagu dilo jiifaa suu ku ogaada asad inuu baralays noqday baralays macnaheedu qofku inta xibnaha hoos beelal baa marka suu ku ogaada idinkana dad wax gartaa tihiin intaas ma waa isbursay kabareeday soo bareeday wuu noolaa yani mid ahaan uu soo tagay ninka laakiin ka soo noolaa been ma mid ahaan ay iga tageen waxay dhahayeen waa dhinteena gooday laba khaliis maadan maqlay ahaan okay asad marka dadka masukaan yaqaanaan qaarkood si kan saaxiib waa una footada iyo saaxiibati xaalad ku dhac
waxaan saaxiibeen ninkaan iyo asad saaxiibo ma ahayn waxaa markhaati ah inay asad ninkaan saaxiibo ahayn waxaa markhaati ah dadka deegaanka ahay ee meesha nala degnaa ama dadka asxaabteena ahay noo dhawaa dadkaasaa fahmi karo ninkaan iyo asad inay waxba ka dhexeynin isku baabna ahayn beligaas maba ku darsamin baana hadhow far isoo gelin banaankaan ka istaagay si far isoo gelin loo dhahay haddana warbixintaan anaga 8 sano ka hor ma ogeyn asad qofka dhibkaan u geystay maantana wuxuu dhahay si aysan far isoo gelin anaga ma ogeyn ma raadsan qof wax dilay ama dacwad ninkaan ma ka bixinin ilaahan tala saaranay marka maantana waxaa caddaatay ninkii inuu meel soo fadhiisto uu afkiisa ka caddeeyo wax walba uu sameeyey armeyna والله horta aad waa wareersanaad yani hadal badan oo aan dhihi karo horta ma jirto tan kale ninka hadda uu dhahay badboodaha waxaas uu geystay uu dhahayo wallahi qof anaga horta aan kasi karno in kale inuu yahay anaga ma ogni qof dhinta waa dowladda yani uu dhintay uu tagay laakiin magacani bedeshteen dadka magac badan isticmaalay waa laga yaabaa qofkaan kale horta weligeed ma arkin idinka taqaani bad aragteen asad wuxuu dhahay baan wajiis cabdigu cusub oo dhacdo markii hore anaa ninkaan dhowr jeer aan arkay waa iska hor imaanay asi rag badan dhowr jeer aan arkay laakiin allahu aclam ma ogeyn anaga qofka asad dilay sababtana la dilay meesha waxna soo gaareen wallahi cidna ma ogeyn intaanaba waa is wareysanay waa isku noqonay waxaana soo baxday sabab la'aan yar ka hadlay hadalkiisa aad iyo aad u dhageystay waxyaabaha uu sheegay dhan waxaa ka jira wax yar qolkiiba 20 sax ka ah marka 80 kale ninkaas si sax ah uma hadlin macna shaki ah asad telefoon ku hadlay sidaas u dhahay asad nina si fiican waa qaan waay walaalkii way ana aqaana maalintaasna aanu ila hadlay waxyaabo badan waa ka hadalnay marka wax ku saabsan arrimo siyaasadda ama arrimo dawladda anaga ma ku jirin sidoo asad afkiisa ka cadeeyay asad aan shakhsiyan aqaan u ahaa yani in fiican u ahaa dawladda ma shaqeynaynin waxba muusan ahayn asad nin oo xiligaas hadda muuqaalkiisa qofkii arkaa asad wuxuu maleynaa qof weyn asad xiligaas sawirada iyo muuqaalka videoga TV-ga ay soo qaateen ama ninka barnaamijka sameynayay videoyaasha soo qaatay waa aragteen asad aad iyo aad u yaraay nin maanta siyaasad ku jira ma ahayn nin dawlad u shaqeeya ma ahayn nin dhan kale ka fikiraay ma ahayn waa la yaabay videogaas aad aan ugu soo noqday 10 jeer oo fiirsaday wallahi horta wax walba alxamdulillah waaye xaqiina waa dilaacay marka alxamdulillah aan dhahan waaye marka waxaan videogan u talgalnay iyo inaan isoo hor istaagno maadaama familkeentiin inaan idin wadaagno waxa maanta soo kordhay oo ah inuu xaq dilaacay si hore idinku sheegay bo asli dhaawacay ilaa hadda waxaan ku fikiri jiray iyo ku dhaawacay iyo ku dili sabab meeshii lagu beegsaday marka waa seexan waay marmar xitaa waxaa dhici jirtay aan kusoo kaco hay dilina marka waxyaabo xanuun badan iyo waxaan jirtay laakiin hadda waxaan rajinaa inaan ka bogsan doono insha Allah kulli ma sii hadli karo waxaan rabaa halkaan inaan u mahadceliyo dhammaan asxaabta markaas ilaa hadda ila xiriir jirtay isla socon jirtay iyo waxaan kaloo halkaan oo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dawladda Soomaaliya oo iyadana kaalin weyn ka geysatay soo qabashada ninkaan maadaama uu ku lug lahaa dilkeyga asna uu sheegay saaxiibkiisa inuu idilay laakiin iyagana isla mid yihiin hadduu qofku wax ka ogaa asigana wuxuu la mid yahay qofkii dil marka kulli hadal kale ma geli karo Armani Cabdullaahi insha Allah kulli idinka la waad أنا واحد هذا الكلام ده مجيلي كرنو ودريني سا هذا مرور كله وقار إنه ولا ده ما أنت إنه وقانو إبكي أسد لو بيستي خوف كده بيه أرماني هنا إليسا والله اللي مرنا إن شاء الله ضد بدن دبات والو بيستي ضد بدن يعني والو بحيلية قار بنتين قار نور أسد الحمد لله ولود دبال ولود لها لكن إنكستو ما أنت وحقد يد وفرح سنة إنها هنا حب كسابسن يعني qaabka wax dhacay in kasto xog dhameystir aan helin hadan inta hada ogaanay yani wax weyn oo soo kabeysa in kasto xanuunkeeda xusuusteeda ay gaar noogu tahay marka insha Allah anaga waxaan jeclaysan muuqaalkan in soo wadaagno maadaama maarka muuqaalkan TV laga diyaay anaga waxaan soo asxaabteena qaar laga waa TV ku xirnaan oo anaga nagu xiran si anaga markaas dareenkan aan soo wadaagno saas darteed muuqaalkan soo qaadanay insha Allah dhamaan waxaan rajayna inta xanuunsan inta dhibaato haysato dhamaan inuu caafimaad siiyo asadoo kamid yahay
marka muuqaalkan intaas ugu talgalnay si kasta aad tawo kuma sitin daawasho muuqaalka daawateen dhammaantood waxaan rajaynaynaa insha Allah khayr caafimaad bashbash barwaaqo farxad iyo reereen aan ku dheeraada suban waxaynu balanaa insha Allah muuqaalkan muuqaalka insha Allah waqtiga aad ka faa'iideyso